gabadh gashaanti oo daayar Soomaaliyeed ah ayaa guuxa diyaaradaha hawada yaacaya ay ku dhaliyeen fikrad ugu ah wariyadii ay cadaadiska kala kulantay qoyskeeda iyo bulshada ay ku dhex kortay ilaa madaxweynihii Soomaaliya ee xilligaasi uu la fuguray arintan si ay uga gudubto xayndaabka iyo xadhkii ay ku hayeen bulshadeedu una noqoto gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ah ee duuliye ka noqoto diyaarad dagaal nasiib darro se waxay noqotay tii ugu dambeysay أصلي حسن عبادة هليدي أستانتا وهيد هوينك الصوماليين بشي جنوري سنة كي كوني سجال بقولية تدبيو كنتكي أصلي حسن أيا كودالتي مقالة بولبردي برتمها صوماليا qoys kay ka soo jeedina waxa uu qoys saboola waxbarashadeedii dugsiga hoose dhexe waxay ku dhameysatay halkaas kadib iyada iyo qoyskeeda ayaa u ambabaxay caasimadda Soomaaliya Muqdisho si ay waxbarashadeeda inta ugu hadhay ay ku dhameysato magaalo madaxda horumar fiican ayaa asli ka gaadhay barashada culumta kala duwan gurigooda cusubna waxay u arkaysay mid riyooyinkeeda ay ku hirgelin karto isagoo ka agdhawaa saldhig ciidamada cirka ee Soomaaliya ay lahaayeen oo loo oran jiray Avisoni taasoo guuxa diyaaraduhu ay asli ku dhiirigeliyeen inay noqoto haweeneydii ugu horeysay ee duuliye diyaarad dagaal ka noqoto wadankeeda waxaana aad u daawan jirtay degitaanka iyo duulimaadka ay sameynayaan diyaaraduhu iyadoo ku hamiyi jirtay inay marun duuliye ka noqoto isla saldhigan balse riyadeedan waxay la kulantay istiidooyin iyo caqabado tiro badan oo u diiday inay hore u tallaabsato ilaa ay ka guuleysatay dhibaatooyinkaas oo idin hal adaygu waa furaha guusha asli wadada ay u maraysay xaqiijinta riyadeeda waxay ahayd mid adag laga bilaabo aabaheed oo u diidanaa arrintan iyo dhaqanka bulshadeeda oo hortaagnaa himiladeeda ilaa ay gaadhay sheekadeedu madaxweynihii Soomaaliya waqtigaasi haystay marxuum Maxamed Siyaad Barre isagoo ugu yeedhay aqalka madaxtooyada si uu uga xal wareysto rabitaankeeda iyo hubinta in loo carbin karo mihnadan halisteeda wadata waxaana uu sharaxay shaqadan ay codsanayso dhibka iyo adayga ku xeeran balse hal adayga iyo go'aan qaadashadii asli waxa uu ka gacan sareeyay loolanadii kaga imanayay laga bilaabo aabaheed ilaa madaxweynihii dalka iyadoo qayb ka noqotay ardaydii wax ka baran jirtay xerada tababarka ciidamada cirka ee Soomaaliya waxaana ka qalin jabisay bishii Sebtembar sanadkii 1976 xilligaas oo lagu maamusay abaalmarinta gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee duuliye ka noqoto diyaarad dagaal 10 sano ayay ku jirtay shaqadan adag ee ay u haysay wadankeeda waxaana ku yeelatay magac ballaaran oo ifaya gaar ahaan markii ay ka qayb qaadatay dagaalkii xoreynta ee gobolada Ogaadeniya wadanku waxa uu ku hadhay qalbigeeda markii ay asli dhameysatay hawsheedii ciidan waxay u hayaantay wadanka Mareykanka halkaas ay ku guursatay kuna dhashay 4 caruur ah balse jacaylka ay u qabto wadankeeda marnaba kama baaqsanin asli 30 sano kadib waxay ku soo noqotay buqcadii ay ku soo barbaartay iyadoo u furtay daayarta wadanka tababarra ay ugu gudbinayso xirfadeedii ay ka howlgabtay si loo helo dhalinyaro cusub oo karti u leh inay dalkooda ka qabtiraan baahida uu qabo ciidamada cirka asli kuma ekaanun inay kaalmooyin bilaash oo tababar siiso daayarka waxay sidoo kale caawisaa dadka saboolka ah waxaana ka mid ah kaalmooyinkii bini'aadantinimo ee ugu weynaa ee asli bixiso sanadii 2011 oo ay Soomaaliya u soo dirtay shixmado gawaadhi oo gargaar ah sidoo kale asli waxay ka qayb qaadatay korinta kaalinta haweenka uu ku leeyahay bulshada dhexdeeda inkastoo ay ku faraxsan tahay inay ahayd haweeneydii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee duuliye ka noqoto diyaarad dagaal haddana waxa uu ku taalo ku reebtay inay ahayd gabadhii ugu dambeysay iyadoo 40 sanadood laga joogo kursinta soo qaata banaanka soo dhigta ay arki jiray diyaaradihii ciidanka cirka dagaalka oo kacay degayo marka saniyad aan gashtay waxaan dhihi jiray ilaahu ha idilin anoo garoonkan ka kicin oo ku soo degin haddaba daawada sidee ayaad u aragtaa haliyeeyadan ku suntan taariikhda Soomaalida halkani waa Sweydeli TV fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar dawankana taabo si muuqaal kasta aan halkan aan ku baahino ku soo gaadho mahadsanid